meesha aan taagannahay maanta waxaa waaye 300 kiiloomitir meel u jirta magaalada Muqdisho 3 maalin ka horana waxaa ku guuleystay ciidamada deegaanka iyo kuwa dawladda iskaashanaya inay ka saaraan masaajid cali gudna waxay u jirtaa 30 kiiloomitir ilaa 30 kiiloomitir inay soo baxsadeen ay cadawga ka saareen ilaaha ku guuleeyay nowna markaan xoog badan iyo culaysaana laga sheegay meelahan kale markay ka dagaalamaan laakiin marka qowmiyadan lagu soo deeyay waa iska sii ordayaan dhibaatadaas meel ay ka hayda ma sheegi karno marka ilaah baa mahadaas kale guushuna insha Allah haduu ilaahay yiraahdo waa sii soconaysaa waana socon doontaa maantana madaxweynihii iyo gudoomiyihii iyo saraakiishii oo hogaaminaysay ciidamada ayaa garbahaan taagan oo booqasho u yimid meeshay qabteen ciidanka dawladda iyo ciidanka deegaanka isgarabsanaya al-shabaabna waxaan u malaynayaa inuu u adkaysa waayo asugu dadka kale uu la diriraayo si loo sheegayo laakiin qowmiyadan waa u adkaysa waayay maahane 300 kiiloomitir meel fudud ma aha marka waxaan leenahay ilaaha mahadaas kale oo awooddaas nool kaga baqaayana siiyay